fadhida iyo TV-ga Universal ee suurtageliyay inaan madaxweynaha wax weydiino waxaan isleeyahay amniga iyo garsoorku horta ma kala bixi karaan oo garsoor hadaan la helin amni la heli maayo amni hadaan la helin garsoor lama heli karo marka way isku xiran yihiin waxaan jeclaalahay si isku xiran inaan u weydiiyo madaxweynaha anigoo hore u galaya shacabka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin xaaladda dawladdeenu maanta oo hogaamiyo madaxweynuhu inay marayso in dhoole faynuus ku raadinaya cirbad ku luntay baqaar dhuxuleed sidaas ayaa la aaminsan yahay oo meel ay u socoto iyo jid iyo jaho midna inay salahayn la aaminsan yahay midda labaad madaxweynaha Soomaaliya waxa la doortay 6 saac oo habeenimo muqdisho oo nabada oo ku meel gaarkii oo ka jiray kadib maalin cad 6 saac oo maalmeeda waxa la qarxiyay maxkamadihii waxa la qarxiyay hadii alla ku rooyay madaxtooyadii waxa la qarxiyay baarlamaankii markii uu horeysay madaxweynuhu oo hadlay wuxuu noo ballan qaaday amniga inuu si degdeg ah wax uga qabanayo wax ka qabadkii wuxuu noqday mudane madaxweyne wasiirka amniga kaliya inuu isxasilmiye ahad wax ka qabadkii aawa intii kale qodobka labaad qodbadii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliya markuu madaxweynaha noqdo uu jeediyay waxa kamid ahay qof dambi galay ee maxkamadu xukuntay inuu san cafi doonin asagoo awood u leh inuu cafiyo ayuu noo ballan qaaday waxaan ognahay Cabdi Maxamed Ismaaciil oo ahay taliye ciidanka asluubta oo lagu helay maxkamadu ku heshay inuu la shaqeynayay nimanka cadawga ah ee ummadda laayay la yiraahdo shabaab ayuu sheegay madaxweynuhu inuu cafiyay Cabdi Maxamed Ismaaciil soo idaacadaha la hadla wuxuu sheegay inuu wax dhiba qabin oo dawladdu waxay u dirsato oo qabanayo inkastoo madaxweynuhu uu noo sheegay sabab caafimaad inuu cafiyo waxaan madaxweynaha Soomaaliya marka ka rabaa Xasan Daahir iyo Cabdi Buur maxay kala yihiin soo isku dambi ma midda labaad atam inta yimid la soo dhaweeyay oo aad ogtihiin inuu ahay nimankii dagaalamay buuraha galgala shabaab kamid ah hadii atam la sii daayay Axmed Cabdi Godane bari haduu yimaado seen la yeela soo isku dambi baahan maxay kala yihiin inta garsoorka isal ku leeyihiin maadaama amniga iyo garsoorka uu kala harin intaasaan ku soo gaabinayaa albadri oo saxaafadda saxafiyiinta aan wali ku jiraa badri